واتهي صاحبة أين أهود كسحبنيو كسدو هذا مغالك حاجة channelك كسيرو official إن شاء الله وحن ست حناء وسجد بيننا شيء كجعل طبعا وآد معان الله مقع بحي أما الله مقع دري علف يجعيل شنتي قلبني ما أي سكدس أكل من خالد يهودو إذا مركا وحي كل من قاب هوتيلا أو خالد كشقين جري وحونا كأها ويتر أما مضلة خالد وحو أها ويل آد ونحسن وحونا كمد أها أرضيدا لوغو جعل يهي جامعة خالد وبلشاوي حضارئة خالد ودنيا بل كمان موقتا وقلبك أيو غني كيهي خالد قلين كهوري وحو تقا جامعة قلين كدنبنا وحو كحوك شدا هوتيل كان هودو مرنبا كمي فيلين إني هالكان أوكلا كو أركتو بلسي وحي قشوعدي سيدو اسكو كلسون يهي ونو إلا شنايو شقديسا إيو وحبرشديسا إنكستوي مركي هوري قلبيغا إسكالا هذا شيء أو أي استيلي خالد مو إسكاكا قريو خالد وحو آد وفرحي أركتيد هودو وحونا أركايي إني تهي فرصد ذهبي sababtoo ah weli qalbiga qaalid muu soo bandhigin ujeedadiisii uu ku doonayay hoodo khaalid wuxuu isku dayay inuu hoodo u sheego inuu arrin muhiim ah u leeyahay balse waxaa jaani uu qudraynayay ka dhicisaysay gabadh habaryar u ah hoodo oo la socotay oo uu meel uu ka maro waayay fursadaasina halkaasay ku dayacantay hoodo waa gabar khaaliqo ku kumanaystay qurux oo jidhkeeda laga ilaaliyay haween la naco hoodo waa gabar xishood badan oo hadal gaaban isla markaana waalidkeed ku soo koriyeen tarbiyad wacan taas oo dhalisay inay noqoto gabadh had iyo jeer asturan waana hablaha dhifka ah ee ugu ixtiraamka badan jaamacada koox uu khaalid ka mid yahay waxay abaabuleen in ardaydu u baxdo dalxiis sidaa darteed professor aadan arrintaa uu ansixiyey waanuu ka ogolaaday dalxiiska abaaro 5 subaxnimo ayuu khaalid u kacay tabaabushe iyo isdiyaarin uu isku diyaarinayo dalxiis la magac baxay dalxiiskii caashiqa waa koox dhalinyaro ah oo isla markaana ku bahoobay jaamacad ay wada dhiganayeen waxayna ka koobnaayeen 15 wiil iyo 10 hablood waa dalxiis si farshaxanimo leh loo soo diyaariyay waxaa kooxda dalxiisaysa hogaaminaya professor ka mid ah macallimiinta jaamacadda dhammaan kooxdani aad ayay u xiiseynayeen dalxiiskan waxayna in badan sugayeen waqtiga la baxayo oo ku beegnayd 4 bishii 6 2010 waana maalin talaada ah qof kasta oo ka mid ahaa dalxiisayaasha aroor horeba wuu isdiyaariyey xiisaha iyo xamaasada ay u hayeen awgeed waxaa isna diyaar ahaa gaadiidkii ay raaci lahaayeen oo kala ahaa bas iyo Land Cruiser waqtigu waa dhulkana aad ayuu u rooban yahay goobta dalxiiska loo tagayeen waa dhul badanaa dadku u dalxiis tagaan waxayna caan ku tahay bad burco buuro iyo sidoo kale durduro iyo dhul cagaaran oo geedo leh saacadu markay maraysay 6 subaxnimo wuxuu qof kasta heegan ku ahaa kursiga gaadhiga professor aadan markuu hubsaday in ardaydu dhan tahay ayuu fariistay kursigii loogu talagalay 6:15 subaxnimo ayay ka hanbabaxeen magaaladii ay joogeen waa tahay saaxiibada aynu hawada ku saaxiibnayo halkaa hayna uga joogto qaybtii koowaad ee sheekadii la magac baxday calaf iyo jacayl waxaa idin tabinayay anigoo ah saaxiibkii محمد عمر علي محمد أركي انتو اينو قيبت حوق لك انكو كل مدنا
waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano allah.